السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay halkan inaan kala wadaago 10 shay oo aysan habboonayn inaad samayso markaad bulsho ku dhex jirto. Kow markaad cunada cunayso inaadan dhawaaq samaynin ama aadan cunada calalin ama raamsan afkaaga oo furan. Labo in maxay ahayday jidka dhexdiisa aada sanka farta la gelin ama aad maxay ahayday isku daydo adoo dad la jooga inaad sankaaga nadiifiso. wax aad iyo aad looga yaqiiqsado haddii ay tahay inaad sankaaga nadiifiso suuliga gal sankaaga soo nadiifi ka bacdina hawshaada halkii ka soo wado ha ku tufin markaad marayso dad waxaa arkaysaa ama candhuufta ama xaaqada in si ayagoon u aabiyeelayna ay jidka iskaga tufaan. qodobka afraad wuxuu noqonayaa fandhicilashada adigoo la jooga dad. qof waxaa arkaysaa cunadii aa cunaysaan ama cunada markaad dhamayseen fandhicilu ama jeebka la soo baxaya ama meeshuu sii yaalay marka fandhicilu bilaabaya iyadoo cunadii laga yaabo inay dadka qaarkii cunadii weli cunayaan. qodobka shanaadi waa hindhisaada. qof waxaa arkaysaa wuu hindhisayaa ama inigoo laga yaabo inaa cunadii cunaysaan ama hawl kala haysaan ama uu kugu dhow yahay iyuu hindhisayaa. hindhasidiiba waxaa laga yaabaa germskii iyo bacteriyadii inay hawada dhan qabsato. marka taasina aad iyo aad baa loogu wanaagsan yahay haddaad hindhisayso qaabkan u hindhis ama maxay ahayday gacanta isoga dhig ama maxay ahayday handkerchief iyo wax qaado. tan kale qodobka kale wuxuu yahay dad baa laga yaabaa inaad la sheekaysanayso ama aad la joogto dad waxaa jira tani bulshadoo dhan maaha laakiin waxaa arkaysaa dadka marka la sheekaysanayaan oo kale jecel inay aad ugu soo dhawaadaan. marka always ama weliga ka yara fogow, keep your personal space maybe 1 mitir oo kaleeto weliga ka yara fogow dadka markaad la sheekaysanayso khaasatan dadka qalaadna ka yara fogow. kale waxay noqonaysaa hindhisaadii waan sheegnay qodobkan lixaadi wuxuu noqonayaa ama toddobaadi duufsiga. yacni qof waxaa arkaysaa wuu duufsanayaa wuxuu iskaga duufsanayaa jidka dhexdiisa ama asagoo dad la joogaan laga yaabo haddana duufkii ama siinkii inuu jidka iskaga saydho. marka taasina wax aad iyo aad looga yaqiiqsado anshax darrana ah maxay ahayday magaalo joogxumana. marka waxaan rajaynayaa qof walba inuu iska ilaaliyo samaynta waxyaalahan. waxay tahay oo waxoogaa aad uma laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay dhibsadaan waa fiiqsiga shaaha. qof waxaa arkaysaa markuu shaaha cabaayo yani shinqad weyn uu sameynaya. marka taasina ayaduna ma wanaagsana fiiqsiga shaahu. waxaa isku day inaad caadi u cabto shaaha hadduu kulul yahay oo tahay qasab inaad shaaha waxoogaa aad kala reebto iska qabooji. tani waxa weeyaan qodobkani sideedaadi waa si guud marka dadka la macaamilayso ereyada wanaagsan adeegso like sida maxay ahayday fadlan iga raalli ahow adoo raalli ah ereyadan oo kale adeegso marka dadka la hadlayso waxoogaa taasi waxay muujinaysaa in dadku ay marka soo dhaweeyaan oo ay noqoto ay kuu saamaxdo ama ay kuu sahasho inaad dadku ay ku qadariyaan. qodobkan tobanaad wuxuu noqonayaa in laga ammaan helo oo marka aad banaanka joogto dadka aad ixtiraamto dadka waaweyn aad u naxariisato dadka daciifka aad u naxariisato oo bulshada aad ka warhayso marka meesha aad ku dhex jirto bulshada aad ku dhex jirto aad ka warhayso oo wixii naxariista markaad samaysan karto iyo bulshada nidaamkeeda aad ka geysan karto aad ka geysato. intaas ayaan rabay inaan idinla wadaag maanta. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.